wararkii maanay deegaanka cadalo oo hoos yimaada degmada Wasiile ee gobolka Mudug ayaa sheegay in maanta kooxda Al-Shabaab ay halkaasi ay ku gubeen beero iyo guryo ku yaala halkaasi kadib markii dhawaan dadka deegaanka ay bilaabeen inay halkaasi ay ka barakacaan. dadka deegaanka oo la hadlay raadiyaha kulmiye ayaa sheegay in Al-Shabaab labadii maalin ugu dambeysay dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka wadeen halkaasi isla markaana dadka xoolo dhaqatada ay soo wajahday cabsi xoogan kadib markii Al-Shabaab ay afduubteen qaar ka mid ah dadka deegaanka kuwaas oo ilaa haddaan la aqoon halka ay la aadeen. ciidamo ka tirsan maamulka Galmudug ayaa lagu soo waramay in maanta halkaasi ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay ku doonayaan inay ku gaaraan deegaanada Al-Shabaab looga shakisan yahay waxaana la arkayaa ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Galmudug howlgalo ka sameynaya deegaano hoos yimaada Cadalle. dadka deegaanka ayaa ka codsaday maamulka Galmudug in laga gacan siiyo sidii Al-Shabaab loogu safeen lahaa deegaanada dhaca koonfurta gobolka Mudug. لكن على كل حال على وجه الناس يعلم ولا ولا بس عدل أنا تيجي ولد ركوب في نص ما مكان أظن مثل أنا وجدت وربع بلا وجدت أنا وجدت وربع مكان فرحت وأنا مثل هذا وبعدين هاي وقولي لك وي مدرنا سامع هو القرآن واتاي قولي برا واتاي نقولي له تقول وصار واتاي أنا أقول له مثل كاره مكان Wasiilo waa magaalo istiraatiiji ah isla markaana isku xirta gaalkacyo Hobyo ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay wadeen dadka deegaanka oo gacan ka heliyay ciidamada Galmudug kuwaas oo ay ku doonayaan inay kaga hortagaan weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan deegaanada dhaca koonfurta gobolka Mudug iyo dhibaatooyinka dadka deegaanka ay kala kulmiyaan Al-Shabaab.